buulanaagi saaki waxaa ka dhacay mid ka mid ah feejignaantii ugu weyneed oo ciidan Soomaaliyeed ay sameeyaan waxaana laga hortagay weerar argagixiso oo qaraxyo loo adeegsan rabay oo lagu qaadi lahaa deegaanka buulanaagi oo qiyaastii wax ka yar 10 kiiloomitir u jirta lambar 60 gobolka Shabeellada Hoose halkan waxaa ku sugan ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor waxayna sameeyeen mid ka mid ah jignaantii ugu weyneed oo ciidan uu sameeyo waxaana la dilay xubno shabaab ah kuwaas oo saan ku ahaa deegaankan oo la sheegay inay weerar ku ahaayeen sidoo kale ama ay sahmin ku ahaayeen difaacyada iyo saldhigyada ciidanka ay ku lahaayeen deegaanka buulanaagi waxaa la sheegay in markii ay magaalada soo galeen xubnahan la dilay ayna dileen ciidanka sidoo kale waxaa la sheegay in ciidanka ay hayeen xogta weerar la doonayay in shabaab ay ku soo qaadaan deegaanka buulanaagi taas oo marka hore ee kooxda ay qorsheysay inay sameyso sahmin ka hor inta weerarka qaraxyada ah ee deegaankan aysan ku soo qaadin ciidankii halkaasi jooga ayaa la sheegay inay ka hortageen weerarkan waxaana marka hore la dilay xubnihii argagixiso ee saanka ahaa kuwaas oo qorsheynayay inay saamiyaan saldhigyada ciidamada ay ku leeyihiin deegaanka buulanaagi ee gobolka Shabeellada Hoose isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsiin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaana xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga deegaankan waxa uu wax ka yar 10 kiiloomitir u jira magaalada ama deegaanka kale ee lagu magacaabo lambar 60 oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan ciidan gorgor ah oo militariga Soomaaliyeed ayaa ku sugan shabaab waxay qorsheynayeen in weeraro ay ku soo qaadaan deegaankan sidoo kalena xogta ayaa la hayay sidaas ay tahana waxaa la sheegay in ciidanka ay ku guuleysteen feejignaantii ay ku jireen muddooyinkii u dambeeyay waa tallaabo mudan bogaadin sidoo kalena looga hortagay qorshe argagixiso oo ay ku doonayeen in weeraro ay kaga qaadaan ama ay ku qaadaan saldhigyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose xubnihii saanka ahaa ayaa la dilay waxaana sidoo kale la sheegay in ciidanka ay ka hortageen weerarkii qaraxyada ay u adeegsan rabeen kooxda argagixiso wixii weeraraha soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu ay beedmo